maantay kulankan adiga ajiibteen oo aan isku kin yeeray oo ahaa dhibkii masiibadii ka dhacday magaalada Hargeysa suuqii weynaa oo aan aad uga xunnahay ka shacbi Soomaali ahaan shacbiga Soomaaliland waxaan uga tacsideynaa arintaas masiibada ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dawlad ahaan waana garab taaganahay walaalaheen Somaliland waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka Somaliland dadkii masiibadaas ka soo gaartay magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Somaliland markasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markayna qabsadaan wayna garab istaagi jireen sidaa darteed ka dawlad ahaan dawladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansanay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 milyan oo US dollar ah wixii karaankeena ka badanna waa dadaal ah waa ku jirnaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo shacabka Somaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wixii idin soo gaaray walaalaheen ayaa tiin markastana waa idin garab taaganahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taaganahay insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku qasaarteen oo idin kaga gubatay ka badan inuu ilaahay idin kugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad ayay uga xun yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الوزراء كحيين وزير هذا قدوميها بنجي دحى جناسته شرفت بدنا دمانتي وهذا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد من رئيس الوزراء وكاغم هذا قال لنا كلن كان قالقة وما أنت أنو قبل قابسي هنتي كلن وحوها شرف له أو تذكرنا قلب وذا وكجري وقتي كهبونا لقبتي مصيبة شلay dhacday maantana waa isaga nimid alxamdulillah aadan kaaga mahad celinaa kulankaas adiga wasiiradaadaba ay ganacsaduna si degdeg ah maanta uga soo qayb gashay intaas markaan uga gudbo mahad celinta waxaan rabaa marka horeysa inaan iraahdo walaalaheen dhibta ku dhacday masiibay ahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay badal khayr qaba ilaahay ha siiyo dadka wax ku xoolo beelana waxaan leenahay sabra waa musiibo waaye waana imtixaan rabaani ah shal ilaahay wax ku siiya maantana ka ashtay وانا لغو سمرا وحان رجينينا إلهي دعاء الناس وبال رمضان أولي بكودي waa imtixaan isleeyahay barnaamijka markuu meesha ku soo aado afiiriso imtixaankana waxa weeye waxyaalaha loogu gudbaa waa bedelkiisu janno noqon doona insha Allah hadii la yiraahdo marka intaas markaan ka soo gudbo waxaan rabaa walaalaheen reer Somaliland anaga iyaga iyo ganacsatada meel buu diganta xaggana waa diganta intana waa digantahay waan isku halaanahay marka soo dhibaato dhacdana shacabka u gurman jirna xaggana waa isugu gurmanaa intana waa isugu soo gurmanaa markii noogu horeysay ma ahayn dhowr gooraan ay baladweyne yimaadeen ayagoo u gurmanaya muqdisho yimaadeen ayagoo u gurmanaya anaga Hargeysa tagna anagoo gurmanayna marka mar walba waa la iskaashadaa goboladu saas oo kale Puntland waa la isugu wada gurmadaa ayagoo waa soo gurmadaa markay dhib dhacdo marka waxaan leeyahay tiyo kale tawaaye ganacsatada Soomaaliyeed maantay oo halkan isugu timid wasaarad isugu yaaray anaga oo soo tashanay waxaan waliba aysan ahayn tii ugu dambeysay waxaan isla garanay ganacsatada inaan walaalaheen ku tabarucno oo dadkaas dhibaatoobay aan ku kaalmayno lacag 2 milyan oo dollar ah oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku deeqayso reer Muqdisho ah oo rabno inaan ku tabarucno walaalaheen dhibka uu soo gaaray anaga oo markaas lacagta dawladda ku tabarucdo yimida anaga ku tabarucnaba ay noqon doonto mid hal mar la isla geeyo insha Allah hadii la yiraahdo intaas kadib waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto waa munaasabadaas oo hadda loogu talagalay waa tii ay dhibtaas dhacday ahayd laakiin isla Ramadaanka bishii Ramadaan hadda noo dhalatay ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkeenu waa dhiban yihiin abaara lagu jira waa la rafaadsan yahay waxaan rabnaa fadlan xaaladan lagu jiro dadka in loo dhimriyo oo badaacadeenu ay raqiis noqoto oo dadka bisha Ramadaan la garab istaago oo badaaca jaban loo raqiisiyo ilaaha ku adaf mudaaf ay noo noqonaysaa sidii oo Ismaan bin Affan iyo xilligoodii oo sadaqadu markaad badaacada aad ka gadato ilaahay inaad ka gadatay ku fiicantahay inta dad ka gadan lahayd marka ummadana aan kaalmayno badaacadana aan raqiisino adduunyadu waa kacda badaacadu waana qaaliyooday laakiin tii horaan haysanaaye aan bedelkeeda ilaahan warsanayna bil Ramadaan waa insha Allah taasna munaasabadan kuma jir laakiin waa ku darsanaa mideen kala tan ra'iisul wasaaraha noo soo gabagabeeyay idana saasaan leh insha Allah waana maasantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh